بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مeel kasta joogtaan ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aan ku eegayno macluumaad goor soo baxay oo la xiriira qorshe uu damacsan yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku dhawaaqay taas oo la xiriirta inuu xaalad degdeg ah ku soo rogi doono Mareykanka ciidamo militariyan ah oo adeegsan doono si uu u sameeyo musaafiriintii ugu ballaarneyd maalintiisa koobaad ee xukunka. Hadalkan oo goor soo baxay ayaad uga bogan doontaan warbixintan. Donald Trump ayaa maanta ku dhawaaqay in maamulkiisu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah oo heer qaran ah. isla markaana oo ciidamada militariga u adeegsan doona musaafiriinta tirada ugu badan oo dadka aan sharciyada haysan ee ku nool dalka Mareykanka. Subax hore ayuu bartiisa gaarka ah soo dhigay Trump inuu diyaarinayo qorshe uu ku doonayo sidii uu musaafiriin lahaa tirada ugu badan una fulin lahaa ballanqaadkiisa markii ololaha ku jiray. Tani markii uu guul taaban karo doorashada ka helay, Trump waxa uu sheegay inuu damacsan yahay inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa ololaha doorashada ee ahaa inuu fulin doono musaafiriinta dadka ugu badan oo ka bilaabanaysa sida uu sheegay maalintii ugu horeysay ee madaxtinimadiisa ama xukunkiisa oo ku aadan dabayaaqada bisha Janaayo ee soo aadan. Laakiin dhinacyo badan ayaa ku tilmaamaya in qorshaha Trump uu la kulmi karto xaaladda sharciyadeed. Sidoo kalena ma cadda barnaamijka Trump uu damacsan yahay ee lagu sheegay inay noqon karto taariikhda musaafiriintii ugu ballaarneyd oo dad looga saaraya Mareykanka. Trump ayaa horey u soo jeediyay inuu ku tirsanaan doono awoodaha dagaalka ciidamada militariga, madaxda gobolka iyo kuwa maxalliga si ay u fuliyaan qorshihiisa. ololaha noocan oo kale ay adeegsiga shaqaalaha militariga si loo fuliyo ayaa ku dhawaad la hubaa inay la kulmi karto caqabado dhanka sharciga, taas oo gadaal ka riixi karaan hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo qaarkood horeyba u cadeeyay inay diidi doonaan inay ka shaqeeyaan ajandaha musaafiriinta ee Trump. Tanna waxay ka dhigan tahay in gobolada ay maamulaan dimuqraadiga in ay ku adkaan doonto Trump inuu dadka musaafiriyo. Marka loo eego bulshada Soomaaliyeed oo tiro badan hadda sanadihii ugu dambeysay ay galayeen Mareykankana waxay ku nool yihiin inta badan gobolada dimuqraadiga, balse ma cadda sida qorshaha Trump looga badbaadi karo inta uu ku jiro qorshihiisa uu ku sheegay inay ka horeyso xaalad degdeg ah oo Mareykanku gelinayo uuna adeegsan doono dhammaan awoodaha oo ay ku jiraan ciidamada militariga. Madaxweynaha la doortay ayaa tan iyo markii uu doorashada ku guuleystay wuxuu bilaabay inuu magacaabo xubnihiisa golaha wasiirada iyo hay'adihiisa kale, kuwaas oo u muuqata inuu isku keenay koox daacad ah iyo kuwo mayal adag si ay u fuliyaan howlgalkiisa musaafiriinta oo markii labaad uu ku guuleysanay xilkan uu doonay inuu taariikhda ku galo sidoo hore uu cadeeyay inuu noqonayo madaxweynihii musaafiriinta ugu weyn ka sameyn doona Mareykanka. Tom Homan oo ah kusimaha agaasimaha waaxda socdaalka iyo dhaqangelinta xuduudaha ee maamulkii hore ee Trump ayaa loo magacaabay hadda inuu madax ka noqdo xuduudaha, waxaana la siiyay awood dheeraad ah. qoraal kooban oo Trump soo dhigay markuu ninkan magacaabay waxa uu sheegay inuu mas'uul ka noqon doono dhammaan musaafiriinta ajaanibta sharci darrada ku joogta Mareykanka, wuxuuna sheegay kuwaas in loo ceelin doono dalalka ay asalkooda ka soo jeedeen. Sidoo kale inuu mar kale Trump magacaabay ninka lagu magacaabay Stephen Miller ayaa loo arkay inay tahay xaalad kale oo quus ah marka laga hadlayo arrimaha socdaalka iyo sharciyada gudaha Mareykanka. Ninka waxa lagu eedeeyaa inuu yahay ninkii ka dambeeyay musaafiriintii xilliga hore oo Trump sameeyay muddo xileedkiisa intuu joogay. Sidoo kalena waxa lagu sheegay inuu ahaa fikradii in la saaro 7 dal oo muslimiin ah ban ama waxa lagu magacaabo joojinta inay soo gali karaan Mareykanka. mar kale ayaa ninkan waxa uu ka soo dhex muuqday maamulka cusub ee Trump, taasi oo la sheegay inay tilmaanba ka bixinayso mar hore inuu Trump ku sii socon doono qorshihiisii markuu ololaha ku jiray uu sheegayay sidii uu fuliyay oo la xiriiray inuu sameyn doono adkayn doonana soo gelitaanka Mareykanka, sidoo kalena dadka aan sharciyada haysan ee haddaba jooga uu uga saari lahaa Mareykanka. Si la mid ah ninkan Kristen Neman oo ah isla nin kale oo xag jir ah marka laga hadlayo arrimaha socdaalka ayaa loo magacaabay waaxda amniga gudaha, taasi oo ka dhigaysa mar raba inuu Trump diyaariyay xubnihii uu fulin lahaa qorshahan, waxayna cadeyntani u ahayd inuu ku sii socon doono qorshihiisa musaafiriinta isla markaana uu adkayn doono arrimaha sharciyada iyo socdaalka. Khubarada iyo dadka u dooda arrimahan ayaa sheegay in ololaha musaafiriinta ee uu Trump qorsheynayo inay kor u qaadi doonto caqabadaha dhinaca sharciga iyadoo aan la xusin kharashaadka sii kordhaya iyo kaabayaasha loo baahan yahay si loo fuliyo howlgalkan tarxiilka ama musaafiriinta ay malaayiinta qof aan sharciyada haysan ee Mareykanka ku nool. Marka loo eego qiyaasaha golaha socdaalka Mareykanka, musaafiriinta 1 milyan oo qof sanadkii waxaa ku kici doonta in ka badan 960 bilyan 10 sano gudahood. Trump ayaa meelo kala duwan ku andacooday inuu musaafiriin doono ugu yaraan 15 milyan iyo xataa 20 milyan oo qof oo uu sheegay inay si sharci darro ku joogaan Mareykanka, balse tiradaas lama hubo. waxaa jirta qiyaas ah in 12 milyan ilaa 13 milyan oo dad ah inay Mareykanka ku nool yihiin kuwaas oo aan haysan ogolaanshaha sharciga. dadka ugu badan waxay soo galeen Baaliri ilaa sanadkii 2022 sida lagu sheegay falanqayn ay samaysay hay'adda cilmi baarista Pew Research. U socdaalida Mareykanka waxay gaartay heerkii ugu sarreeyay
intii lagu jiray sanadadii 2022 iyo 2023 markaasoo xadka Mareykanka iyo Mexico isku xiray dadka ugu ballaarnaa ay soo galeen walow sanadkan 2024 la sheegay in aad hoos ugu dhacday tiradaas kadib talaabooyin uu maamulkii Biden hadda xilka digay ay qaadeen ma cadda cidda maamulka Trump uu beegsan doono si loo masaafuriyo hadaladiisa ololaha doorashada wuxuu inta badan ku guuldareystay inuu kala saaro dadka soo galootiga ee sharciyada haysta iyo kuwa sharci darrada ku jooga Mareykanka intuu socday ololaha Trump wuxuu ku andacoonayay in dadka soo galootiga ah ee ku soo gudbiya xuduudda koonfureed ee Mareykanka sanadadii la soo dhaafay inay wadaan dambiyo inkastoo dambiyada rabshadaha watay Mareykanka la sheegay hoos u dhaceen daraasada la sameeyay sida ka arki kartaanba dhammaan warbaahinta Mareykanka iyo shabakadaha kale ee caalamiga ayaa arintan soo hadal qaaday oo ka hadlay halkaas oo noqon karta tixraac ka heli kartid hadda u baahan tahay macluumaad dheeraad oo la xiriira qorshaha Trump uu sheegay inuu xaalad degdeg ah Mareykanka gelin doono tarxiilkii ama masaafurinta ugu ballaarnaan oo sameyn doono waxa la xasuustaa in dhibaato dhinaca sharciga ah iyo doodo waaweyn inuu Trump dhexda u galay madaxweynaha hore markaas oo inta badan gobolada ay dimuqraadiga hogaamiyaan ay diideen in dadka la masaafuriyo sidoo kalena waxa ay diideen in sidoo kalena ay celiyaan dadkii soo galay gudaha Mareykanka macluumaadka iyo waxyaabaha dheeraadka ay ka soo baxana arintan barnaamijyadeena iyo baahinadeena kala duwan ee ka baxa bartida Facebook Iman Jamac sidoo kale YouTube-ka Iman Jamac iyo barta Telegram-ka Iman Jamac ayaa isla saacada ay soo baxayaan ka heli doontaa inteenu markala kulmayno sidaas iyo caafimaad qab iyo amaana Allah